السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kooraskeenii farsamada baabuurta. waxaan ku guda jirnay cutubkeenii afraad. waxaan bilaabanaa casharkiisii saddexaad. casharka saddexaad waxaan uga hadli doonaa kaambiyaha ama sanduuqa geerka ama gearboxka ka u garanaysaanba. waxaa casharka inoo soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Xaris Faarax. wixii jawaab celin waxaa noogu soo celin kartaan emailka shaashadana ka muuqda. kooraskan waxaa kala socoteen mareegtada Somalism Online Academy. haddaan ku hormarno noocyada kaambiya. kaambiyuhu waxa uu qaybsanaa laba qaybood oo kala ah kaambiye la maamulo iyo kaambiye aan la maamulin, automatic transmission iyo manual transmission gearbox. sanduuqa geerka waxaa lagu magacaabaa gudbiyaha awoodda matoorka, waana halka ugu muhiimsan ee gudbinta awoodda matoorka ay ka dhacdo. sidoo kale waxa uu leeyahay waxqabad awood xukun oo marna xawaaraha gaariga laga siyaadinaya marna waa laga dhimaya. sanduuqa geerka waxa uu u qaybsamaa laba nooc sida aan soo sheegnayba: sanduuq geer aan la xukumin iyo sanduuq geer la xukumo. sanduuqa geerka la xukumo marka la geer bedelayo waxaa la isticmaalaa kiliish si loo kala jaro xiriirka ka dhexeeya matoorka iyo sanduuqa. kiliishku u shaqeeya waan soo sheegnay si ay u fududaato in xawaaraha gaariga la siyaadiyo ayaa waxaa la kala jaraa matoorka iyo kaambiyaha. kadib ayaa nidaamka kala jaranaya waxaa lagu yeeraa kiliish, si aan horey casharkan hore ugu soo sharaxnay. waa kan iyadoo la geer bedelayo. kana ujeedaan waa manual transmission ama sanduuqa geerka la xukumo. sanduuqa geerka aan la xukumin waxa uu si iskiisa u gudbiyaa ama u bedelaa xawaaraha gaariga. sidoo kale waxa uu leeyahay kooxo geerar ah oo isku xiran laguna yeero meero geer, kaas oo ka kooban geerar dhexe, geerar wareegsan iyo 3 geer oo gudaha ah, kuna wareega inta u dhaxaysa geerka dhexe iyo geerka wareegsan. marka waxaa jirta si xawaaraha loo siyaadiyo, si xawaaraha gaariga loo siyaadiyo waxaa jira saami ka dhaxeeya geerarkan wareegaya. saami ka dhaxeeya baa jira, saami socod marka ama saamiga xawaaraha ka dhaxeeya. marka saami geer baa lagu yeeraa. saami geer muxuu noqonayaa marka? waa saamiga u dhaxeeya wareega xawaareedka geerarka, kuwaas oo leh dhexroor kala duwan. yacni geerarkan uu sanduuqa geerka aan la xukumin ka kooban yahay wuxuu leeyahay geerar. sidoo kale geerarkaas uu leeyahayna maxay ku kala duwan yihiin dhexroorkooda. dhidib kasta wuxuu ku wareegaa xawaare ka duwan midka kale ayagoo wada shaqeynaya ama qaarkood shaqeynaya. yacni dhidibka uu ku wareegayo meesha barboontiga uu ku wareegayo waxaa laga yaabaa qaar inay soconayaan, geerarka qaar waxaa laga yaabaa inay yacni waa naga sheegnay way kala xawaare duwan yihiin, way kala xawaare, qaar baa xawaarahooda dheereynaya, qaar baa xoog u soconaya, qaar baa ayar u soconaya. marka dhidibka ay ku wareegayaanna wuu kala socod duwan yahay, kala xawaare duwan yahay. marka tusaale ahaan geerka weyn iyo geerka yar saami socodka ka dhexeeya ayaa la yiraahdaa saami geer, waana tan laga xukumayo waxa la yiraahdo awoodda yacni socodka gaariga ama xawaaraha gaariga. tusaale ahaan marka saamigu uu badan yahay, saami geerku markuu badan yahay xawaaruhu wuu yaraanayaa. marka saami geerku yar yahayna saamiga ka dhexeeya maxaa la oran jiray geerarkan wareegaya markuu yar yahayna xawaaruhu wuu dheereynaya. tusaale ahaan geerka koowaad oo kale saamigiisu waxa weeye 3.18 waa saamiga weeye, wuu badan yahay soo maa, xawaarihii wuu yaraanaya. tusaale ahaan sidoo kale geerka afaraad saami geerkiisu waxa weeye 0.6 yani waa wax halkaya, marka xawaaruhu wuu badanaya. taas saamigu wuxuu noo sheegayaa waxa la yiraahdo markastuu yar yahay oo markastuu xawaaruhu badan yahay. markastuu badan yahayna waa markastuu xawaaruhu yani markastuu yar yahay waa markastuu xawaaruhu badan yahay, markastuu weyn yahayna waa markasta oo xawaaruhu yar yahay. yani wax isku yihiin lid. waa kuwan geerka ka sheekeyna, waa kuwan geerka wareegsan kan baa la yiraahdaa. geerka dhexe waa kan, kuwan gacmaha la yiraahdaa. geerka gudahana kuwan saddexdaa waa la yiraahdaa. waa kan saan u shaqeynaya, wada soconaya.
kurtiga saas u wada wareegayaan. Hadda laakiin qaar baa geerka qaar marka la joogo tusaale ahaan hadda geerka saddexaad oo kale saamigiisu waa hal, kurtigood marka maxay ku wada soconayaan socod isku mid ah, xawaare isku mid ah. Meerageerku waxa uu leeyahay saddex awood dhaliye oo u dhexeeya geerka dhexe iyo geerka wareegsan iyo hal awood soo saare oo ku xiran meerageer qaadaha. Socodka geerka wareegsan waa mid joogto ah. Socodka geerka wareegsan waa mid joogto ah oo aan istaagayn, wuxuuna wareejiyaa saddexda awood dhaliye wareejiyaa kadib geerka dhexe bay wareejiyaan meerageer qaadaha si uu u wareejiyo meerageer qaadaha kaas oo asna sii wareejinaya geerka awoodda soo saaraya. Marka la siyaadiyo socodka geerka wareegsan waxaa siyaadaya xawaaraha ay soconayaan geerarka awoodda dhaliya, kadib waxaa badanaya awooddii ama xawaarihii la soo saarayay. Kan waa sanduuqa geerka aan la maamulin, xagga waxaa uga xiran jeentii, jeentuna waxay awoodda usoo gudbinaysaa candhadiina waxay gaarsiinaysaa taayirada. Xaggan waxaa uga xiran waa matoorka. Gunaanad ama guud ahaanba haddaan soo koobno, awoodda markuu matoorku soo saaro waxay soo maraysaa kaambiyaha markay soo marta ama sanduuqa geerka soo maraysaa ama kaambiyaha waa isku midkii, yani waa hal magac ingiriiska oo aan toos u turjunay iyo isagii magac Soomaali ahaanta u badan yahay loo yaqaano. Marka awoodda markuu matoorku soo saaro waxay soo maraysaa sanduuqa geerka wuxuu usii gudbinayaa jeentii waxay usii gudbinaysaa candhooyinkii. Candhooyinka markuu gudbiso candhooyinkina waxay usii gudbinayaan taayirada. Markaas waxay keenaysaa in uu gaarigii socdo. Casharkeena maanta wuxuu ku egyahay intaas. aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.